Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Barnaamijkan intiisa badan waxa aan xoog ku saari doonaa wadahadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu miyaa laga danaystay mise yoolkiisa ayuu gaaray. Markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay bilowga howlgal military oo ay wadajir u sameynayaan Mareykanka iyo Israa'iil oo ka dhan ah Iran dhamaadkii Febraayo, waxa uu adeegsaday cod adag oo kalsooni leh, laakiin codka soo baxay xafiiskiisa markii la gaaray xabajoojinta u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran wuxuu ahaa mid aad taxadar badan uga muuqday, isaga oo si cad u muujinaya in go'aanka uu gaaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo kaliya. Bayaankaasi sidoo kalena waxa uu si weyn ugu doonaa hadallada guusha uu sheegan jiray ee ka imaanayay Mareykanka iyo Iran, kuwaas oo labaduba ku andacoonayay inay gaareen guul weyn kadib 5 toddobaad oo uu dagaalku socday. Hadallada uu jeediyay habeenkii Arbacada, Benjamin Netanyahu ayuu ku tilmaamay howlgal mid guul ah, balse waxa uu sheegay in xabajoojintu aysan ahayn dhamaadka, isla markaana Israa'iil ay weli leedahay yoolal kale oo ay doonayso inay gaarto, ha noqoto heshiis ama dib dagaalka in looga laabto. Haddaba go'aanka uu gaaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu weli si cad uma cadda ay leeyihiin falanqeeyayaasha caalamka. Warbixinadu aad ay xasaasi u yihiin caawa nala joog ilaa dhamaadka wadahadallada Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya ayaa weli ka socda Islamabad, iyadoo ay muujinayso wufuudda inay sii joogi doonaan maadaama wadahadallada ay sii socdaan haddii aysan dhicin isbedel degdeg ah, sida ay warisay wakaaladda wararka Iran ee Tasnim News Agency. 2 saacadood oo wadahadallo ka fool oo ay qaateen Mareykanka iyo Iran oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda Pakistan waxaa hadda loo baxay ayaa leeyahay nasasho, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Wakaaladda wararka Iran ee Fars News Agency ayaa ku warantay inay ka soo xigatay ilo ka tirsan wafdi wadaxaajoodka ee Iran oo sheegay in horumarka laga gaaro wadahadallada ayaa go'aamin doona ay leeyihiin in la kordhiyo joogitaanka wafdiga ee Islamabad iyo in kale. Dhinaca kale, xeeldheerayaasha wadahadalkan isha ku haya waxa ay leeyihiin wadahadalkan Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya ee ka socda Islamabad ayaa u muuqda inuu u baahan yahay maalin kale oo dheeraad ah si loo sii wado ay leeyahay doodaha farsamo, iyadoo aanan weli go'aan kama dambays ah laga gaarin, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Iran ee Tasnim News Agency.